runtii xaaladda muqdisho waa xaalad u baahan caalamka horta inuu nala fahmo. dowladda federaalka meelgaarka dadaalo fara badan bay samaysay, dib habeen lagu sameeyay ciidamadii oo maleeshiyaadkii la isu keenay oo muddo dheer socday, laakiin waxaa moodaa in caalamka uu ka gaabiyey sidii uu caawin lahaa institutionka dowladda. runtii haddii caawinaadii loo baahnaa la heli lahaa inay maanta noo suurageli lahayd inaan amnigii sugno, noo suurageli lahayd inaan shabaab ka sifeyno magaalada muqdisho iyo waddanka oo dhan. marka waxaan leenahay caalamka ayagana dowladda fursad uma helin oo ay maaragtay waxay ku qaban lahayd ku qabato, sababtoo ah sidii May 2009 xasan daahir u soo noqday u yimid magaalada muqdisho, waa dagaaladii bilowday baa dowladda ku socda ilaa iyo hadda, oo shabaab iyo xisbul islaam oo si joogta ah marna kala harin u bawacdhigidda aan u bawacdhignay iyo iska difaacidda ayaa waxaa moodaa in waqti intiisa badan nooga dhumay. marka haddii aan fursad heli lahayn waxaa dhici lahayd in dowladdu ay si wanaagsan u shaqayso, ummaddeedana u adeegto. marka xaaladda muqdisho waa xaalad shalay markaan soo baxayay dagaalo ayaa ka socday dhanka boondheere oo al-shabaab ay isku dayayeen inay bal kusoo sikadaan oo ilaa iyo madaxtooye ku yimaadaan. runtii iyadana ciidankii dowladda ka hortagay ilaa iyo maantana waxaa maqlayay dagaalada inay socdaan. marka dagaaladaasi waa kuwo joogto ah oo muqdisho dadka degan barakac u keenay, dhimasho iyo dhaawac fara badan u keenay, mas-uuliyaddeedana iska leeyihiin kooxda al-shabaab oo diidan inay maaragtay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliyeed. marka runtii waa nasiib darro ummadda Soomaaliyeed ku habsatay. caalamkana waxaa ka codsanaynaa inay fahmaan xaaladda siday khatar u tahay, isla markaana ay gurmad degdega la soo gaaraan ummadda Soomaaliyeed. dagaalka marka ma wegyahay mid dhammaanaya mise waa jiitami doonaa, sidee kula muuqataa? runtii haddii aan dowladdu helin imkaaniyaadka u baahneed daryeelka ciidamada iyo dhaqaalihii ay ku socodsiin lahayd hay-adaha maaragtay dowliga ah, waa adkaanaysaa in dagaalkaasi uu dhammaado. marka waxaan rajaynaynaa caalamku inuu taas fahmo, nala garab galo, isla markaana si inagu sahlanaato in shacabka Soomaaliyeed la badbaadiyo, ardaydii Soomaaliyeed loo helo iskuulle ay tagaan, ay waxbartaan, iyo si ay maaragtay daryeelkii ummadda ay dowladda u hayn jirtay usoo noqoto. waxay ku xirnaan doontaa sida dowladdu loo taageero. hadalkaaga waxaa ku jira wasiir in tan iyo markii xasan daahir uu soo laabtay dagaalkii laydinku bilaabay weli uu socdo, laakiin arrinta dad badan xujada ku noqota waxay tahay xasan daahir iyo madaxweynaha dowladda hadda ee sheekh shariif laba nin oo maxkamadihii ku wada jiray asmaro wada joogay ahaayeen, haddana waa kala aragti duwan yihiin. dadku waa iskhilaafaa, waa heshiiya, waxbaa la isku gafaa, laakiin ilaa xadkan in cid kala dhex gashana la waayo, ayna is afgaran waayaan, maxaa u sababa? runtii waxaa u sababa laba arrin. waa midda koowaad ee influensiga caalamka ama dowladaha aan Soomaaliya ahayn, oo runtii oo la socota xasan daahir meeshuu ka yimid waxay asmara dowladda Eritrea oo runtii aad uga soo horjeeday dowladda federaalka meelgaarka, una arkaysay sheekh shariif inuu iyagii maaragtay ka soo tegay. taas ayaa keentay in xoog lagu saaro xasan daahir iyo xisbul islaam iyo al-shabaab inay dowladda la dagaalaan. sidoo kale inay jiraan dowlado ama shakhsiyaad ayagana ama ha noqoto ururka al-qaacida oo sheegtay isla markaana ayagana sheegteen inay u shaqeeyaan, ayaa runtii ah tan ugu weyn oo diidaysa in ummadda Soomaaliyeed is hor fariistaan oo ay arrimahooda ka wada hadlaan. midda labaad, dadka shakhsiyaadka Soomaaliyeed oo runtii aan ka soo horjeeda dowladda aan u naxaynin ummadooda, ka fikiraya dantooda oo keliya, isla markaana meeshii ay dantii ummadda ku dhammaanayso carruurta Soomaaliyeedna dagaal ku gelinaya, oo runtii loo baahna inay danta guud inta fiiriyaan ay dulqaad iyo samir isu sameeyaan, ay maaragtay qoryaha iska dhigaan. labadaas arrin ayaa isu kaaya beersatay. runtiina dadaalo fara badan waa sameynay oo ilaa xad dad ku jira xisbul islaam dowladdu waa la heshiisay, waa la socota ahlu sunna iyo dowladdu waa heshiiyeen. marka waxaan aaminsanahay haddii Soomaalida iyagii ay arrinta ka go-ayso inay maaragtay diyaar u noqon lahayn inay dowladda la heshiiyaan, laakiin al-shabaab iyo xisbul islaam hadda waxaan aaminsanahay inaysan talada iyaga ka go-in. taas ayaa keenaysa inay diidaan wax wada hadal ah. runtii sheekh xafow iyo ahlu sunna culimadeeda annaga waxaan aaminsanahay in heshiis aan wada galnay, heshiiskiina qayb ka mid uu ahaa in golaha wasiirada dad lagu soo daray. dadka la soo daray 5 qof oo hadda ku jirtana waa 5 qof oo ahlu sunna iyaga keensadeen, saxiixoodana ku yimid.
runtii xeebka naftirkiisa isaga ayaa idaacadihii ka hadlay caddeeyey in dadkaasi ay yihiin ahlu sunna laakiin waxaa jira dad kale oo iyagana ahlu sunna ah oo runtii ka biidiidsan heshiiskaasi isaga runtii ummadda soomaaliyeed dhibkana haysta waxay tahay haddii urur walba markii lala heshiiyo uu laba fidqo u noqdo ama ay kala sii qaybsamo waa nasiib daradana haysato laakiin waxaan ku caddaynaa dowladda dhankeeda in heshiisyadii ahlu sunna lala galay qayb ka mida la fuliyey qaybo fara badan aan la fulin sababtan ay tahay dhaqaale la-aan oo dowladda haysta runtii waan jecleen in ahlu sunna ee gobollada dhexe iyo dowladdu ciidamada isku biiriyaan arrimaha maaragtay laga taakuleeyo ciidamada si al-shabaab looga saaro gobolladaas maaragtay u dhexeeya ahlu sunna iyo meesha dowladdu joogta arrimahaasna waa qorshe noo socda oon rajeynayna caalamka ballanqaadyadii noo ballanqaaden inayna siiyaan aad iyo aad waxaan u kalsoonahay ahlu sunna inay yihiin culamo soomaaliyeed oo runtii ayaga interestgooda hore u caddeeyey inaysan kursi u socon laakiin u socdaan in ummadda soomaaliyeed al-shabaab laga hor qaado aadna waxaan u kalsoonahay in heshiisyadan hadda dhaqangelintiisa aan bilownay inaan dhammaystiri doono kuna heshiin doono waxyaalaha khilaafaadka yaryar ee jira dagaalyahanada ee shisheeyaha ah ee la sheego soomaaliya inay ka dagaalamayaan kooxaha idinka soo horjeeda ay la safan yihiin tiradooda war ma ka haysaan intay la-egyiin iyo waddamaday ka yimaadeen runtii maya tiro dhaba kama hayno laakiin waxaa la qiyaasaa inay maalin walba kusoo biirayaan oo runtii dagaalada ka dhacaya muqdisho runtii ma aha kuwa soomaalida maaragtay fikirkoodii ah waa la socotaa dagaaladii dhanka waqooyiga muqdisho nagu dhex maray in qidada ay sameeyeen oo ah in laamigii hoosta laga qodo oo la baabi'iyey laamiyadii si aan taangiyada usoo gudbin waa fikir laga keenay afghanistan iyo ciraaq oo aad ujeedo in maaragtay maamulka ama talada ay dad ajnabi meeshii ka wadaan iyo dagaaladan caruurta maaragtay layska soo hormarinayo oo laleeyahay jannadii baa gelaysaan oo aad maaragtay loogu baabi'iyey dagaalada ayagana waa fikir isagana maaragtay dibadaha nooga yimid tiro hadda dhaba oon ku siin kara malaha laakiin waxaan ognahay inay tiradu maalin walba aada usii badanayso marka maxaa ugu wacan ma meelo badan oo aan aydan war ka haynin baa jira oo ay ka soo galaan qolooyinkaas halkee u malaynaysaan inay ka soo galaan runtii gobollada intooda badan al-shabaab ay gacanta ugu jiraan marka anagu ma ogaan karno meesha gaarka ay kasoo galaan laakiin waxay haystaan fursad ay meelo badan kusoo geli karaan sidoo kale waxaad ogtahay culays fara badan in la saaray afghanistan iyo ciraaq taasoo u sahashay in soomaaliya ay noqoto meel ay maaragtay dowlad xoog leh oo controolka ku haysa gacanta aysan jirin tanoo ah sababaha keenaya inaysan dib u heshiisiin diyaar u ahayn waayo waxay aaminsan yihiin dowlad la-aantu inay ayaga fursad u siinayso cid alaal ciday doonaan inay keensadaan si alaal siday doonaan u dhaqmaan isla markaana maaragtay ay kusii baahaan waddanka marka haddaan dhaqso laga gaarin waxaa dhacayso inay maaragtay dhibka intaas kasii bato waa la socotaa puntland somaliland waa meelo nabad ah laakiin waxaan aaminsannahay al-shabaab istaraatiijiyadooda inay tahay inay meelahaas nabadda ka qaadaan tagaan marka annaga aada iyo aad taas uga walwalsannahay mana maaragtay rabno in ummadda soomaaliyeed meelahooda nabadda ah in dhib horle laga abuuro marka al-shabaab haddaan hadda la qaban waa sii badanaysa dadkaas ajaanibta ah ay ku xiran alqaacida inay waddankii si toos usoo galaan haddii aan la qabanin al-shabaab oo hadda dhul badan inay idinka haystaan aa sheegtay welin waa ay sii sikanayaan wararkii ugu dambeeyey boondheer ay ahaayeen inay joogaan weliba meel madaxtooyada u dhow haddii xaaladdu sidaas ay kusii socoto dowladdana la isugu yimaado marka dambe fariisimadeeda maxaa xal idiin ah ma tegaysaan mise waxaa noqon doontaan dowlad dibadda ka shaqaysa runtii maya annaga waxaan rabnaa inaan gudihii joogno inaan maaragtay babac dhigno iska dhicino al-shabaab kana guulaysano waxaan aaminsanahay in laga guulaysan doono waxaan aaminsannahay shacabku inay maaragtay la sifan yihiin dowladda laakiin hadda aysan haynin tabar ay maaragtay dagaalada ku galaan laakiin mar haddaan dhaqaaq samayno oo aan al-shabaab maaragtay ka riixno meelo badan in shacabkuna ay taageerana siin doonaan